كديل هذا كعيار إسها كديل هذا كعيار دقاقة بدي صوديس كوبدا صوديس قويس ماذا داف دينعيا ذا فيري صحيكا وديب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور دواد حبنتيني عيارها ومروا لي بعد كدا وتانا مات كلا سعتان جبت تيفي بعد ما سنتين داوشدينا كسور دواد حبنتيني عيارها فضلنا دياد نوع صبتا جنال كان سبسكرايب سالد aad aad maasantiin dhammaantiin qof walbuna daawanaya oo umad celinayna waxa wadanka Finland ka bilaawday tartanka Somali Cup 14 bisha 7 ee 2020 tartankaas oo ah tartan sanadle ah oo ay ka soo qayb galeen sanadkan 15 kooxood oo reer Finland ah iyo koox ka timid wadanka UK gaar ahaan London. Horitaanka tartanka waxa ka soo qayb galay dad badan oo magac iyo maamuus ku leh wadanka Finland. waxaa kale oo dhanka aaladda zoomka uga qayb qaatay halyeeye qaran ay ka mid ahaayeen Umar Barajab tababare xulka qaran ee kubadda kolayga, Shiino Guhaad xulka qaranka kubadda kolayga, Cabdi Warsame Isaaq tababaraha xulka qaranka ee ciyaaraha fudud, Maxamed Mukhtaar garsoore caalami ah kubadda cagta. maalinta Sabtida ee bisha 8aad ee kow ahayd ayaa la soo gabagabeeyay tartankan ka socday tankii maalmood ee la soo dhaafay. Somali Cup oo ah koobka ugu weyn uguna faca weyn ee lagu qabto qaaradda Yurub ee ka socday wadanka Finland 20kii maalmood ee la soo dhaafay waxaana lagu soo gabagabeeyay magaalada Helsinki ee wadanka Finland. waxaana warbixin naga siiyay qabanqaabiyaha koobka عدي فتح قاجي هذا الذي سنة وحاكمي دها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعفتح محمد قاجع وحنا قدومي قبل سنة الصومالي كاب سنة كم سنة كسدح الله وطنات كوب كم قبلنا يو سنة كعكس وغيب قلي لحية طبعا كوحد سنة طبعا وطن كفيل لنا هي هال وطن كيود كي مجالي سلام كتمي كوب كم عكس وغيب قابي أورك دلني هذا سبورت سوق ساريو أو طلع قلي إنه ما في وقت السمر كمجال فيل لنا وطن كنسكو مادان وقتنا كوقاتان si mataqaana aysan mataqaana u mashquulin waxyaabo kale oo xun sanadkan waxa isku soo baxay finaal labadan kooxood ee faanta ka wada dhisan kooxda Ali Basha Auto Besu iyo kooxdan kale Koifi Kula ciyaarta finaalka socota marka waxaan rajaynaynaa inay si fiican ku dhamaan doonto Rabiidna. Finaalka waxa isugu soo baxay laba koox oo isku magaalo ah ee kooxda Ali Basha Auto Besu iyo Koifi Kula oo ka wada dhisan magaalada Fanta ee Finland. koobka waxa ku guuleystay kooxda Ali Basha Auto Besu kadib markii ay 3-1 uga badisay kooxda Koifi Kula. tartamada noocan ah ayay dadka aad u xiiseeyaan maadaama lagu jiro xilliyada fasaxa waxaana aad u soo dhaweeyay daawadayaasha ciyaarta oo aad ula dhacsanaa hab ciyaareedka ay soo bandhigeen kooxihii ciyaarayay daawadayaal. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka ciyaaraha kulankan iyo kulamada intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. حيو بستركاغو ودكودن مرد كودا داوعيو نبها قيسن إرفكايو حناقدا دقنكا سبورتيغايو سوركيو شرعيقا دور دقنكا سبورتيغايو سوركيو